بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله سؤالا كجوابنا وكلاء بإذن الله الكريم. عادة لا أنت محاكيني عادة لا أنت محاكيني أو ماركتي قبل محي عادة ذي ذو هلي ويس horta sida runta ah arrintaani dad badan ayay ku dhacdaa gabdho badan ayaa soo ka sheegta arrintaani waana naqaanaa in oo maaragtay caado la'aanta waxa keenayo waa sixirka iyo isha iyo xasadka saddexdood way isla qabaan anaga waxa waaye asbaabaha ugu badan oo maaragtay oo on dadka aan ka matajino oo calooshiisa aan socodsiino oo toobin aan u dirno waxaa ula jeednaa waxa waaye jirka waa inuu wasakhda ku jiro waa inuu soo baxaa jirka lianna adiga jirkaaga hadduu nadiif yahay ishi way ku adkaanaysaa sixirku wuu ku adkaanaya xasadku wuu ku adkaanaya inuu jirkaa ku jinnigana wuu ku adkaanaya inuu jirkaaga ku jirnaado lianna kaliin ayaa tahay qof nadiif ah calooshaada waa nadiif feerahaaga waa nadiif dhiigaaga waa nadiif marka way ku adag tahay inay maaragtay sixirka oo jirka oo ku jirnaado way adag tahay inuu xasadka oo jirkaada ku jirnaado way adag tahay isha jinkan way adag tahay qaar ahaan horta jinniyaasha ugu badan oo dhiigaba waxay u soo daynaynin waxa way dhiigaas ay ku nool yihiin caalamka jinniga waxay aaminsan yihiin qofka maaragtay oo cabo dhiiga oo bani aadamka ah waxa waaye cumrigiis ayaa dheeraado dhalinyaronimadiis ayuu ku soo noqdaa waad la socotaan kuwan oo maaragtay la yiraahdo oo illuminati iyo dadkan maasonida maaragtay freemason la yiraahdo iyo dadkan oo maaragtay oo aaminsan sheedaanka caabudo maxay sameeyaan waxay sameeyaan wadamada maaragtay sida Indonesia iyo sida Malaysia iyo wadamada iyo maaragtay oo Bangladesh iyo wadamadaas ayay tagaan caruurta ayay soo gataan caruurtay qalaan oo maaragtay dhiigaas oo bani aadamka ayay sheedaanka siiyaan marka jinniga iyo sheedaanku way jecel yihiin dhiiga bani aadamka inay cabaan marka waxa waaye jinni noocaas ah oo dhiiga jecel hadduu jirkaaga soo galo horta maaragtay waxa meeshaas ayay kugu daynaysaa caadada the more adiga maaragtay dhiigaaga oo cabo the stronger he became maxaa waaye marka mar walba oo dhiigaaga cabo waa si xooggiis ayaa sii weynaanaya xooggiis ayaa weynaanayo oo waa sii adkaanaya marka gabar waxaad arkaysaa oo dhalinyaro ah 25 jir 30 jir ah oo waxay ku leedahay 3 sano 4 sano 5 sano sheekh dhiig ma aanan arkin markaad qur'aan saartidna sheedaan ayaa ka dhex qaylinaya jinniga ka dhex qaylinaya oo dhahay aniga maaragtay anaa dhiigeeda cabi jiray oo dhiiga maaragtay anaa ku noolaa wuxuu fadhiyaa wuxuu jiifaa muxuu ahaa ilma galeenku aga jiraa meeshaas ayuu dhiigeeda ku cabaa qoftaan dhiig oo dhan kama soo baxo marka ishana waxa waaye sidaas oo kale sixirkan waa sidaas oo kale jirkaaga intuu wasakh u yahay waxa waaye sheedaan waxaan dhahay sixirka iyo maaragtay iyo isha way ku noolaan karaan laana waxaad arkaysaa qofka markii uu calool baxo markuu mantago jirkiisa isbedel ayuu ku arkaya caafimaad ayuu dareemaya limaada lianna jirkii ayaa wixii soo raacay wasakhdii ayaa wixii soo raacay intay noqotaba 5% 10% qofka markii inuu ku celceliyo ayuu u baahan yahay laakiin caadada mar walba hadday kaa maqan tahay ma aha inuu adiga sixir iyo il iyo jinni iyo waxaas jirkaaga ku jiro waxaa dhici kartaa nafsiyadaada inay tacbaan tahay stress inuu ku hayo depression inuu ku hayaa dhici karta مثلا waxaa dhici kartaa qof ma aragtay gabar oo hadda la guursaday waxay arkaysaa 3 sano 4 sano ayaa la qabaa 5 sano ayaa la qabaa uur ma qaadin marka niyadeeda waxay gashanaysaa inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala caruur siiyo stresskaas ayaa ku furan waxaad arkaysaa caadada waa ka joogsanaysaa dhakhtaray aadaysaa waxaa leeyahay adiga uur ma lihid ayaa loo leeyahay caadadana way maqan tahay marka 2 bil 3 bil ayay iska maqan tahay marka 1 bil ayay iska maqan tahay ma dheeraanayso oo ilma ah oo sixir ma aha laakiin waxaad arkaysaa 1 bil 2 bil inay maaragtay ay isan caadadu u imaanin marka waxa waaye nafsiyada qofta ma aragtay ay ku xiran tahay the more happy ay tahay ee nolosheeda murtaax ay ku tahay oo ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa si ay ku faraxsan tahay the easier ma aragtay ay caadada ugu imaanayso
hadduu qofka ma aragtay sadma ay ku dhacday shock oo ku dhaco qof oo familiga ka dhinto mise qof ay jeceshahay wax gaaro waxaa dhici karta caado xataa inay ka soo maqnaato marka ma aha qof waliba oo gabar waliba oo caadada ka maqnaato in ay sixran tahay mise inay ma aragtay il ku dhacday mise waxyaalaha ma aha markii aan qalad loo fahmin oo isdhihin aniga caadada waxay iga maqan tahay sixra igu jiro mise jinniya jirkay ku jiro noloshaada waa inaa fiirisaa stress miya noloshaada ma buuq badan tahay oo mashaakil family problem ma kugu furan shaqada oo shaqo xoog lamaad wadaa oo gabdha waxaan arkay subxaan allah 20 waxay shaqaynayaan 12 saac 15 saacadood ayay shaqaynayaan marka qof saas oo kale nasasho uma taalo waxa dhici kartaa caadada inay ka soo dahdo oo caadada dhan ay u maan ways marka waxay ku xiran tahay qofta iyo nolosheeda sidee tahay qof waliba oo caadada ka maqan lama dhihi karo way sixran tahay waa inay ma aragtay nolosheeda la fiiriyaa oo la darsaa calaamooyinka sixirka laga raadiya calaamooyinka isha laga raadiya calaamooyinka xasadka laga raadiya markii laga waayo waxaa macquul ah inay qoftan nafsiyan ahaan ay u jiran tahay oo u baahan tahay stresska wax ka qaado qofka saas oo kale waxaan dhahnaa holiday iska aad vacation aad soo wareeg soo nafis xoogaa stresska ka yaraado dikirkana badi qur'aankana badi waxyaalahaas oo dhan cimraha dad aadi kartid waa fiicnaan lahayd xaj hadduu qofka aadaay maasha allah ma zamzam isku soo daldal waxaasoo dhan dhaqsiyo kaa baxaya insha allah marka insha allah ilaahay subxaana wa tacaala kelmadan aan soo jeedin qaalisan liwajhi lkariim inay ilaahay subxaana wa tacaala oo ka dhigo ilaahay subxaana wa tacaala naman gabdhaheena caafimaad hasi ilaahay subxaana wa tacaala ha ka qaado waxa haaya insha allah subxaanaka allah bixamdik ashhadu an laa ilaaha illa ant nastaghfiruka wanatuubu ilayk wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu